munaasabadan oo ahayd dufcaddii 12aad oo ay ku qalin jabiyeen in ka badan 1300 oo arday kuwaas oo dhameeyay qeybaha kala duwan ee kuliyadaha ay bixiso jaamacadda Soomaaliya oo kamid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka oo qayb galay maamulka sare ee jaamacadda Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo uu kamid yahay gudoomiyaha aqalka sare ee dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir wasiirro iyo marti sharaf kale gudoomiyaha golaha sare ee jaamacadda Soomaaliya Maxamed Macalin oo hadal ka jeediyay xafladda ayaa ugu horeyn u hambalyeeyay ardayda qalin jabisay waxaana uu sheegay in talaabadan ay dad badan u xaqiijinayso in waxbarasho heer sare ah dalka ay ka jirto isla markaana ay u taagan yihiin soo saarista aqoon-yahano Soomaaliyeed sida aad ogtiin jaamacadda Soomaaliya higsigeeda meesha ay ka soo bilowday waxay ku fakaraysay markasto inay soo gaarto maanta oo kale oo ardada inta leeg ay ka qalin jabinayaan ardada intaas leeg ay ka qalin jabinayaan jaamacadda way soo gaartay higsigeedii qaybteedii koobaad jaamacaddu waxay ku dadaalaysaa inay tayeyso waxbarashada sida laga dhawaajiyay wasaaraddu ay ka dhawaajisay guddiga jaamacaduhu ay ka dhawaajiyeen jaamacadda Soomaaliya waxay u istaagtay inay tayeyso waxbarashada sare ee Soomaaliya inay ka qayb qaadato tayeynteeda arintaas waxa marqaati u ah in la dhameystiray dhammaan agabkii waxbarashada haday ahaan lahaayeen qalabka caafimaadka haday ahaan lahayd isbitaalka haday ahaan lahayd muxuu ahaa civil engineering-ka qaybta dhismaha iyo cabiraadda haday ahaan lahayd muxuu ahaa computer engineering dhammaan wixii looga baahnaa in wax lagu barto maanta waxaan cadeynayaa u sheegayaa xubnaha dawladda ka socda iyo dhammaan martida meeshaan isugu timid inay u dhameystiran yihiin wax alla wixii ay u baahnaayeen inay wax ku bartaan khayr Allah siiyo hay'adihii nagala qayb galay horumarintaas hay'ado badan baa nagala qayb galay wasaaraddu qayb bay ka ahayd horumarinta muxuu ahaa waxbarashada tayada waxbarashada ee jaamacadda Soomaaliya waxa qayb ka ahaa safaaradda Turkiga waxa qayb ka ahayd hay'adda Tika waxa qayb ka ahaa hadii Ilaahay ku leeyahay hay'ado fara badan oo ka soo qayb galay inay horumariyaan jaamacadda Soomaaliya oo inta ay gacanta ku hayso wax ka horumariyaan ayadana waan meeshaan maanta aan joogno waan uga mahad celinayaa ayagana qaybaha ay ka soo qaateen gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo isna hadal ka jeediyay munaasabadda ayaa hambalyo u diray ardayda waxaana uu ku dhiirigeliyay in waxbarashadooda ay ku sii dadaalaan aqoonta iyo khibradda ay hayaan ay uga faa'iideeyaan dadka iyo dalkooda waxa sharafi amaanta waxa farxadii amaanta in aan ka soo qayb galo qalin jabinta ardada Soomaaliyeed ee jaamacadda Soomaaliya oo tiradooda loogu sheegay 1300 iyo siyaado waa arin aad iyo aad u farxad gelinaysa guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan waalidiintii iyo macallimiintii barayaashii ku soo dadaalay iyo hoggaanka jaamacadda ee ardadaasi ku soo dadaalay waxaan isleeyahay Soomaaliya way soconaysaa marka ay hesho xoog aqoon leh oo wax qabta wasiirkeennii hore ee beeraha erey uu halkan ka shanqariyay waxaan isleeyahay wuu mudan yahay ereygaas in si fiican loogu dhug yeesho kaasoo ahaa oo i xusuusiyey 60maadkii iyo 70meeyadii nadariyad socotay oo la oran jiray Malthus theory oo oranaysa bini aadamku wuxuu ku korayaa ku yaani tarmaya geometric progression wax soo saarkuna wuxuu ku socdaa arithmetic progression
arday baad tihiin waad garanaysaan labadaa eray iyo waxay ku fadhiyaan oo micnaha uu ninkaasi lahaa waxa weeye haddii uu dhaqaaluhu sidaa u socdo koritaanka dadkuna uu sidaa u socdo waxaa imanaya waqti yacni shaqo la waayo wax la cuno la waayo oo dadku isku qamaamo mid ka mid ah ardayda qalinjabisay oo isna hadlay ee sheegay inuu ku faraxsan yahay in isagoo dalkiisa jooga uu qaato shahaadada koowaad oo uu ka helay jaamacadda Soomaaliya isla markaana uu sheegay inuu kaga mahad celinayo maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Soomaaliya oo suurageliyay weynii ah inaad ii ogolaataan inaan soo istaago hortiina anigoo matalaya ama wakiil u ah dhammaan ardayda sanadka 2018-2019 ka qalin bedelanaysa jaamacadda dareenka iyo dadnimadu gaarka u tahay ee jaamacadda Soomaaliya haddaad ii ogolaataan aniga oon cilmi badan iyo aqoon aan idinka dheerahay aan liigu garan inaan hortiinna soo istaago waxaad ii ogolaataan inaan u mahad celiyo ugu horrayn aasaasayaasha jaamacadda Soomaaliya macallimiinteenna qiimaha badan waalidiinteenna asxaabteenna iyo guud ahaan qof walboo door ku lahaa maanta meesha aan soo gaarnay oo aan iyaga la'aantooda aysan suurtagal ahayn inaan qiimaha maanta aan yeelanayno iyo dadnimada naga muuqata inaysan naga muuqdeen ugu dambeyn gunaanadka xafladda waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey qaar ka mid ah ardayda qalinjabisay kuwaas oo guddoon sharafeed kaga qaatay shahaadooyinka madaxda xafladda ka soo qayb gashay maxamed bishaar bare jaamac goobjoog muqdisho